Asalaamu calaykum, waa anigii oo soo laabtay. Maanta maxaa la soo laabtay rootiin cusub. Maanta maalinteena waxay noqonaysaa maalinkii muufaha la sameynayay. Maanta waxaa sameynaynaa muufo iyo maraq. Kusoo dhawaada maraqa waxaa ka sameyn doonaa kalluun. Waa maalin qurux badan, alxamdulillaah. Ani waxaa kusoo kacay nabad, idinkana waxaan rajeynaa inaad sidoo kale nabad kusoo kacdeen ood caafimaad qabtaan. Maanta waxaan rabnaa 5 shay oo naftiina muhiim u ah inaan in la share gareeyo. Anaka dhan inoo tahay sanadka maanta wax ay ahayd inaad sameyso ood ka gaabinaysa haddii jirto waa inaad sameysaa. Haddii niyadaada ay ku jirtay inaad xirfad barato, inaad shaqo raadsato, inaad waxyaabo badan aad fitness sameyso, gym sameyso, inaad miisaankaada dhinto, inaad waxyaabo badan oo naftaada ku horumari lahayd oo laakiin niyada kaaga jiray oo haddana aad sameynin haddii ay jiraan waa inaad sameysaa. Qof walbo wax walbo wuu sameyn karaa, laakiin waxyaabaha hoos noo dhigayo waxay tahay waa inaad tiraahdo wixii aan maanta qaban lahayd beriyaan qabanaa. No, wixii maanta inaad qabatay waa inaad maanta qabataa. Waa inaad maanta qabataa oodan dib u dhiganin. Haddii aad jeceshahay inaad makeup ka barato, hadhihin makeup waan jeclahay kaliya, laakiin ficilki samee. Wax walba ee igu qaadato waa inaan barta dheh. Waa inaan sameeyo dheh. Dadkaan makeup ka sameynayo dad la dhashay ma ahan. Dadkaan cilaanka marinayo sidoo kaleeto qof walbo way baratay. Dadkaan cuntada karaad aragtay way barteen. Qof walbo way baratay. Waa inaad barataa. Maanta tusaale hadaa adiga hooyo tahay ood u baahan tahay inaad ilmahaada yar cilaan u saarto, ood u baahan tahay inaad timaha u soo hagaajiso, qof aad u geyni. Laba waxba waa dhumayaan. Time-kiina wuu kaa dhumaa, lacagtiina way kaa dhumi. Oo lacagaad meesha ku bixinay. Laakiin hadaa adigu taqaanid labadaba waa save gareynay. Hadaad adiga nafsad ahaantaada maanta aroos lagaaga soo yeero oo lagu yiraahdo aroosaad leedahay, waa inaad makeup marsataa, waa inaad tintii hagaajisataa, waa inaad cilaan marsataa, waa inaad salon aada ku qasban tahay. Salonka waqtigii aad ku aadi lahayd lacagtii labadaba waa save gareynay. Haddii adigana barato waad sameyn kartaa, waad marsan kartaa, waad baran kartaa. Qof aan sameyn karin ma jirto. Marka wixii aad sameyn lahayd oo jadwal waa inaad qortaa. Hadaad rabto ha wada sameynin, laakiin wax ka mid ah waa inaad sameysaa. Muhiim ma ahan inaad tiraahdo maanta 10 shay hadaa qoratid oo hal shay ka qabato guulaa gaartay. Laakiin hadaad waxba qabanin oodan waxna qoranin taasaa khasaare ah. Waxaa fiican warqada ku qorani waa inaan sanadkan sameeyaa waxaan jeceshahay. Ileen qof dad qaar waxaa jiro inay luqadda barta jeclaan haddana aan baranaynin. Dad waxaa jiro inay waagu markuu kuu baryayo oo subaxii ilaa habeenkii maxaad qabata waa inaad isweydiisaa oo jadwalkaada dib u fiirisaa. Waxaad leedahay subaxii hadaad soo kacdo oo ilaa habeenkii adan waxba qaban aad seexato walahi khasaarad ku jirtaa. Midaasna wax nolosheena ama nafteena anfacay ma ahan. Mid caafimaadkeena u fiican ma ahan. Waxaa wanaagsan inaad wixii aad maanta soo qoratay jadwalkii habeenkii markaa seexanayso waa inaad fiirisaa oo tiraa horta maanta maxaan qabtay, maxaan qaban. Waa inaad isweydiisaa. Fiidiyowga waa naga dhamaaday. Marka waa mahadsantihiin asxaabta. Fiidiyowga xiga waxyaabaha kale oo talooyinkeena ku dhameystirayna. Channelka subscribe saara, like saara. Waa mahadsantihiin meeshan la soo gaartaan. Thank you so much.